kulanti wacan daawadayaal waxaan idin soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda madaxtooyada iyo sidoo kale diyaargarowga ku dhawaaqista golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. fadlan haddii aad hadda nagu soo biirtay YouTube-keena subscribe garay, like garay, share garay, comment garay. wararkii ugu dambeeyay ee madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegaya in liiska golaha wasiirada cusub la dhameystiray lana filayo in lagu dhawaaqo saacadaha soo socda. waxaa hadda soo shaacabaxaya xubnaha ka mid noqon doona golaha wasiirada cusub ee ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ee uu ka dhawaaqi doono kadib muddo bil ka badan oo xilkaasi uu ku magacaaban yahay. ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda cusub ayaa la xaqiijiyay in uu noqon doono madaxii shirkadda dahabshiil ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, ninkaasoo lagu magacaabay Xasan Cabdi Cawad oo lagu dhawaaqay inuu xilkii shirkadda ka tagay dhowr jeerna la tashiyo uga tagay amaba u tagay madaxtooyada Soomaaliya. dhinaca kale wasiirada ka soo muuqan doona xukuumadda Xamse Barre ayaa waxaa ka mid ah Axmed Macalin Fiqi oo la filayo inuu noqdo wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya, isagoo qaadan doona xilka wasiir beesha Habargadir oo dood badan ka taagneyd, iyo Maxamed Sheekh Cali Doodishe oo lagu wado in uu noqdo wasiirka qorsheynta ama arrimaha dibadda ee Soomaaliya. siyaasiga Cali Xaaji Warsame ayaa isna lagu wadaa in uu ka mid noqdo golaha wasiirada cusub oo la siiyo jagada ugu weyn ee beesha uu ka soo jeedo. dhinaca kale Professor Cilmi Maxamuud Nuur oo ka tirsan xisbiga UPD ee Xasan Sheekh ayaa la filayaa in uu noqdo wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya, isagoo bedeli doona Cabdiraxmaan Ducaale Beyle. wasiirada inta badan waxaa qortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo markaan cadeeyay in uu golaha wasiirada ku soo dari doono dad uu ku kalsoon yahay iskuna hubo, waxaana saameyn kooban ku leh ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. haddaba iyadoo uu gabagaba yahay liiska golahaasi wasiirada laguna wado in xukuumadda Xamse Cabdi Barre saacadaha soo socda lagu dhawaaqo, ayaa xogta la helayo waxa ay sheegaysaa in dhammaan wasiiradii beesha hawiye la siiyey xubno ka soo jeeda xisbiga madaxweyne Xasan Sheekh ee UPD. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo xulay inta badan golaha wasiirada cusub, waxaana siyaasiyiin la kulmay oo ay ka mid yihiin xubnihii midowga musharaxiinta ee ka taageeray in dib loo doorto uu u sheegay in uu soo xuli doono wasiiro si buuxda aqoon ugu leeyahay kuna kalsoon yahay. wasiirada beesha hawiye ee madaxweynuhu ka soo jeedo ayaa la xaqiijiyay inuu ka soo xulay xisbigiisa, waxaana ay kala yihiin: 1. Axmed Macalin Fiqi waxaa la siiyey wasiirka beesha Habargadir ee uu ka soo jeedo, waxaana xilkan sidoo kale ololo ugu jiray Abshir Buqaari, balse xil kale loo raadinayaa sida wararku ay sheegayaan markii ay suurtagal noqonto amaba ay suurtagal noqon weyday in beesha labadan siyaasi ay hesho labada wasiir. xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed waxaa la siiyey kursiga wasiir ee beesha Xawaadle, iyadoo uu isla kursigan raadinaya Cabdullaahi Sanbalooshe, laakiin madaxweyne Xasan Sheekh ayaa u janjeersaday dhinaca xildhibaan Cabdirasaaq. 3. xildhibaan amaba Xasan Macalin waxa uu qaadanayaa wasiirka beesha Mursade, waana dooqa koowaad ee madaxweynaha, iyadoo ay meesha ay ka baxeen musharaxiin kale oo ololo ku jiray. 4. xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Beene waxa wasiirka beesha Baadacade ee uu soo xushay madaxweyne Xasan Sheekh, kana mid ah xisbigiisa iyo xubnaha ugu dhow. 5. xildhibaan Cali Xaaji Aadan ayaa loo badinayaa in la siiyo xilka wasiir ee beesha Gaaljecel. xubnahan kale ee wasiirada iyo wasiiro dowlayaasha ka heli doonta beesha hawiye ayaa sidoo kale u bannaan doona xisbiga madaxweyne Xasan Sheekh, taasoo meesha ka saartay rajadii ay ka qabeen siyaasiyiinta kale ee beeshani oo qaarkood ay codad badan ay ku taageereen doorashadii Xasan Sheekh. musharaxiintii beelaha hawiye ee xilka madaxweynaha oo dhammaan Xasan Sheekh taageeray wareegii 2 iyo 3 ee doorashada ayaa intooda badan la sheegay in uu albaabada ka xirtay madaxweynaha Soomaaliya, iyadoo musharaxa ugu fog ee ay kala boodeen uu noqday Shariif Sheekh Axmed. haddaba sida guuxa dadka iyo sidoo kale suuqa wararka yaala haddii aynu fiirino sida wasiirada iyo beeluhu ay u kala heli doonaan, waxaa la muujinayaa in ay jirto saadaal ku saabsan in hawiye 5 wasiir ay heli doonaan ay isugu jirto wasiirka caafimaadka, wasiirka cadaaladda,
wasiirka amniga, wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka ganacsiga. beesha daarood ayaa iyadu shanteedu wasiir waxa ay noqon doonaan wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka qorsheynta, wasiirka duulista, wasiirka boostada iyo wasiirka beeraha. beesha direed iyagu waxa ay heli doonaan ra'iisul wasaare ku-xigeen, wasiirka maaliyadda, wasiirka bay'ada, wasiirka dhalinyarada, wasiirka warfaafinta, wasiirka shaqada iyo shaqaalaha. beesha raxawin ayaa iyaguna waxa ay heli doonaan wasiirka gaashaandhigga, wasiirka diinta, wasiirka biyaha, wasiirka dekedaha, wasiirka xoolaha. beesha shanaad waxa ay heli doonaan wasiirka waxbarashada, wasiirka batroolka, wasiirka dastuurka, wasiirka haweenka, wasiirka kalluumaysiga. tani waa guuxa dadweynaha iyo sida ay siyaasiyiinta ay saacadihii la soo dhaafay baraha bulshada ay ugu falanqaynayeen suurtagalnimada qaabka ay wasiiradu ay u kala heli doonaan beelaha iyagu nidaamka 4.5 ku qaybsan doona xukuumadda ra'iisul wasaare xamse. waxaana la filayaa in saacadaha soo socda ama caawa ama habeen dambaba ay suurtagal ay noqon doonto in golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya lagu dhawaaqo. sidaasi ay jirto haddana waxaa la soo shaacbixiyey in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu bari uu ku wajahan yahay magaalada Arusha ee dalka Tanzania. waxaana ay noqon doontaa safarkiisii lixaad ee muddo 66 maalin ee uu madaxweyne Xasan Sheekh uu magacaaban yahay uu ka baxayo dalka oo uu ku tagayo dal kale. safaradii uu ka kala bixiyay tan iyo markii la magacaabay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa ka mid ahaa tii ugu horeysay uu ku tagay dalka isu taga Imaaraadka Carabta, Turkiga, Djibouti iyo Kenya oo dhowr heshiis uu wadamadaasi uu ku soo kala galay. hadda waxaa la filayaa hayaala leeyahay dalka Tanzania in uu u ambabaxo. sidoo kale dhegeystayaal daawadayaal waxaan idinka iloobay boqoshadii ugu dambeysay ee uu ku tagay Djibouti iyo gaar ahaan dalka Eritrea, halkaasi uu kulamo kula soo qaatay madaxda waddankaasi isagoo booqday ciidamada Soomaalida ee lagu tababarayo waddankaasi Eritrea. daawadayaal warbixinteeni muuqaalka haddaad daawatay fadlan nala wadaag aragtidaada si ay noogu dhiirigeliso in xogihii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo umuuraha dibadda aan idin soo gudbinno. subscribe saar haddii aad channelkeena aad ku cusub tahay. wixii aragtiya hoos noogu dhaaf saaxiibadaada la wadaag adigoo share garaynaya muuqaalka. ma sanidin